gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne ayaa kormeeray xarun ay degan yihiin dadka naafada ee ku nool magaalada Beledweyne. warbixintan waxa inoo eegaya Cabdullaahi Cismaan Macalin. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Xuseen Ismaan Cali ayaa maanta waxa uu booqday xero barakacyaal oo ay degan yihiin dad ka soo barakacay gobollo kala duwan oo ku yaala dalkeena Soomaaliya. gudoomiyaha ayaa waxa uu ku urgalayay xaaladda ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah ee soo maciin biday ku noolaanshaha gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilligan ay ku haysato xaalad nolol xumo. gudoomiyaha ayaa waxa uu guri u booqday halka ay degan yihiin dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay deegaanada gobolka Hiiraan iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliya. ugu horeyn waxa halkaas ka warbixisay xaaladda ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha mid ka mid ah horjoogayaasha kaamamka ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne. bismillaah meeshaan waxaa la dhahaa kaamka Calowle. anigu waxaan ahay gudoomiyaha kaamka Calowle Fahan Cali Gulad iska danyara oo soo barakacay dad abaaru keentay dad danyarnimo keentay dad tuulooyinka ka soo qaxay colaadihii ahliga ah ka soo cararay dad badan ay iskugu yimid waxa jirtay xilli oo ay raashin heli jireen oo hore oo xilligii RCRC wax bixin jirtay kaamamkii wax la siin jiray kamid ahaayeen laakiin intii muddooyin ah dadkaan waxba ma helin aad u dhibaataysan yihiin muddo intii waxba ma ay arag dadku waxay iskugu jiraan dad aad iyo aad u liita dad maalintii asagu tabar loo inta suuqaan orda ama xaabo soo gurta ama maaragtay dhar soo dhaqa dad adugu maalintii ayagu hadeero kale suuqa inta cara ama komba bariis la yimaado ama soo waado dadna waaba dad looga tago looguna yimaado ay هذا قال هري هاي انت دقنتها هاي ما كان حاجه صبح يا مستحيل اكل مال مستحيل دولات جو مقعاس على الراميه مقعاس على الراميه هاي وركاس وعديها marka mustaqil ka adig iyo meeshaan iska degan haye maxaa ku haysaa meesha marka waxaan ku haysano ma laabo haye maya haye wax gargaar ma yeesheen maya haye gargaar oo ku haysano male haye waxaan ku haysano male biyaha xataa waa gadana haye musqul waa hal xabo haye waa kaasa walaalo musqul dhan hal xabo ku tahay hal xabo haye musqul dhan khalqiga arkaysa waa la wada degan yahay haye marka musqul bas meesha loogu tahay haye waa kaasa baahida ku aad marka musqul marka baahida ma hayso kan waa rabnaa kan intan waa rabnaa انت واربنا بع واربنا لعب واربنا وحن ديدينا مال بي واربسي بي واربنا عافماد واربسي عافماد واربنا ان شاء الله يا الله واربنا اسكال واربنا وحن ديدينا مال ان شاء الله ان شاء الله اله لا غيره اله لا غيره حبنا لنا كلا سوق مال طريق جاس ولا عقد سميستان كلا سوق مال وحلقه ما عاد قاعد سنة صدرك إسلام كاي هيدا سون فرق بيجي هيدا قاعد سنة إني كرب قبطان كنا أنا بيرنا السيجا بدأنا السيجا هاك الحولي وأجين إني هو كيرين أنا قلت كجيران أيضا سكراب ولا لا كان أنا وحنا كسر عرب التوبية كسر عرب تيجان كي برجنا ولا يران كسر عرب تكين ولا توبية لوقعت يوح كعرران كسر عرفنا gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Ismaan Cali ayaa waxa uu baaqay dadka Soomaaliyeed ee wax haysta iyo dadka Islaamka ah ee hay'adaha samafalka bixiyeen ee dadkani gargaar degdeg ah la soo gaaraan. waxaan tagay kaamka Webi Shabeelle oo muuna xalaan ay hurdooga ka tahay runtii waa dhibaatooyinka waa aad u fara badnaayeen waxaan ku arkay dad cusub oo mustaxiil ka soo qaxay dad fiir ka yimid dad teeglo ka yimid dad yow kala dudbanaa meeshaas ku arkay kaamkan Webi Shabeelle horeen waa u sheegnay magaaladan wax loogu soo cararay wax kale ma aha amniga ka jira magaalada sharaf ay noo tahay maamul ahaan in magaaladeena amni ka jiro oo nolol yimaado anaga noo soo qaxo aad iyo sharaf nagu tahay oo dadkayna reer Hiiraan aysan meel kale tageenin wax cararayeen laakiin ayaga loo soo cararayo ayaga loo imaanaya anaga sharaf ay noo tahay maamulkeena oo xaqii amniga baan aad iyo aad uga fiicanahay
qof kastoo Soomaali oo meesha yimaadana runtii waxaan ku qasbanaa inaan soo dhaweyno marka saaki dadkaasaan la kulmay intan waa kula kulmay kaamkan hadda aan taaganahay Calowi oo ay hor fadhiso Faham Cali oo iyada markaa mas'uulka ah marka dadka reer Hiiraan marka anoo ka faa'iideysana fursadan ganacsatada reer Hiiraan inay dadka kaalmeeyaan anaga horta kaalmada aan iska bilaawno maamulka la helo gacan laga helo ganacsatadii gacan laga helo hay'adihii gacan laga helo markaasaan dawladda dhexe iyo dawladda Hirshabeelle markaasaan dhigi karnaa in gacan laga helo laakiin anaga horta ugu horeyso in gacan horta anaga laga helo la rabaa saxaafadda meediyaha telefishinada waxaan ugu baaqayaa sidii telefishinka Jubbaland oo kale inay noqdaan oo ay meelaha barakacayaasha ama markaan soo aadayn ay noo yimaadaan ay nala arkaan ay dadkii dhibaatadooda arkaan waa looga fadhiyaa idagana ay ka qayb qaataan laakiin Jubbaland waxaan ku amaanaynaa mar walba meel aadayn waa nabad taagan yahay Cabdullaahi Xuseen Macalin Jubbaland TV magaalada Beledweyne